dhammaan soo dhawaada asxaabta. Maanta halkan waxaan ku qaadan doonaa wax yar oo short presentation ah. Waxa loo yaqaano trading. Trading markaan ka hadli doono waxaan soo qaadan doonaa waa maxay trading, ganacsi waa maxay, haduu ilaahay ku investing asaguna waa maxay oo maalgashi waa maxay. Trading investing baan isbarbar dhigi doonaa labadooda. Waxaan kala soo ogaan doonaa fundamental analysis waa maxay, technical analysis waa maxay, what drives the financial markets, maxaa kaxeynaya oo dhaqaajinaya financial markets suuqyadii oo kala dhaqaalaha oo kale maxaa dhaqaajinaya, waa maxay market trend isbedelka suuqa ku dhacaya waa maxay. Intaas marka uga hadlana soo gabayn doonaa. Marka haddaynu eegno waa maxay what is trading. Trading is the fundamental economic concept that involves buying and selling assets. Waxa weeyaan waa economic concepts weeyaan. Waxa weeyaan waa fikrad dhaqaale oo asaasi ah intaasoo ay ku lug leeyihiin ama meeshaas ay ku dhex jiraan buying and selling assets. In la buy gareeyo oo la gado ama selling lagu sameeyo oo la gato assets, hantidii oo kale. Hantida maxaa noqonaya waa anything that belongs to the business. Waa shay kasta oo leeyahay ganacsigu leeyahay baa waxaa la yiraahdaa asset kiya. This can be goods, waxyaabahaas waxaa ka mid ahaan doona assetka. This can be goods ama alaab, waxaa ka mid ah goods baa ka mid ahaan doona, alaab baa ka mid ah, service ama adeeg baa ka mid ahaan kara. Marka goods alaab marka lagu leeyahay oo kale, alaabta waxaa noqon kara oo kale dharkii baa noqon kara, kabihii baa noqon kara, haduu ilaahay ku roon yahay wax kasta oo alaab ah la dhihi karo, qalabkii oo kale noqon kara. Marka service waa maxay? Service waa adeeg. Adeeg maxaa noqon kara? Waxaa noqon kara oo kale haduu ilaahay ku roon yahay waxbarashadii oo kale, medical caafimaadka oo kale ka mid ah, iyo waxyaabo kale oo badan. Marka in other case the transaction maxaan dhihi karaa trade maxaa waa transaction can involve the exchange of goods and services between trading parties. Waxa weeyaan waa transaction-ka ka dhex dhacayay isbedelka goods and services marka la isku bedelayay transaction ka dhacaya maxaan leenahay trading maxaa ka jira. Sababta trading waa maxay? Waa isku bedelashada laba shay oo isku bedesho trading iyo ganacsiga. Waa maxay investing? Waa maxay trading soo aragnay wuxuu ahaa investing waa maxay? Investing oo ah maalgashadii. Investing is allocating resource. Waa in la beeqaamiyo ama la isticmaalo resource-ga kheyraadkiisa capital oo kale sidii oo kale hanti oo capital oo kale wealth ama capital-ka oo kale lacagtii oo kale shay oo kale with expectation kaasoo laga rajeynayo generating profit. La soo saaro oo kale faa'iido in laga helo iyadoo la isticmaalayo resource-gii kheyraadka la isticmaalayo sida capital-ka oo kale iyadoo la rajeynayay waxa loo isticmaalaya ay tahayna profit laga helo oo si loo rajeeyo. Tusaale kale lacag baa haystaa, lacagta hadii baa waxa ku invest gareysay tusaale waxbarasho ku invest gareysay institution waxbarasho ama institution waxa ku invest gareysay oo kale caafimaad. Waxa fadhiyo oo kale meel weyn oo caafimaad wax kasta laga helayo. Marka expectation-ka ugu weyn oo aad u invest gareysay waa maxay? Waa to gain profit, inaad ka heshid faa'iido inaad ka heshid. Waxa ku jira oo kale waxa ka mid ah waxyaabahaas oo investing ah using money to fund. In la isticmaalo lacagtii oo kale in la isticmaalo to fund. Maalgelin oo kale in la isticmaalo. And buying land dhul inaad gadatid oo kale waa investing oo kale. Dhulka u gadaysa maxay tahay? With the goal of reselling it later at a higher price. Shayga dhulka u gadanaysa muxuu yahay? Waa inaad mustaqbalka markuu qiimihiisa kor u kaco oo kale inaad gadid oo kale. Suppose tusaale oo kale dhul baa waxa ka baxsatay oo kale $1,000 baa ka baxsatay. Waxaa rajeynaysaa oo kale 5 sano soo socota inuu dhulkaas u gaari karo oo kale 7,000 oo kale. Inuu gaarayo waa rajeynaysaa. Marka kaasa waxay investing waxyaabahaas kale la yiraahdaa. Inaad shay gadatid iyada oo macnaha u gadanaysid oo invest gareynaysid oo hantidaada u gelinaysid ay tahay expectation-ka ugu weyn oo tahay in future-ka mustaqbalka soo socda in shaygaas uu kordhi doono qiimihiisa. Dhul baa gadatay $1,000 dhul aa gadatay marka hore. Suppose dhul baa waxa ku gadatay $1,000 oo lacag ah ku gadatay marka hore. Kabacdina waxaa dhacday dhulkii inaad 5 sano ka bacdi after 5 years inaad dhulka ka bixisay oo kale $7,000.
marka $7,000 waa waxyaabihi aan rajaynay bay ka mid tahay oo aan marka hore u invest garaynayay bay ka mid tahay marka waa inaad ogaataa waxaad investing marka lagu leeyahay waa inaad ogaataa tusaale kale qofaa wuxuu rabaa inuu wax invest gareeyo oo kale intaada wax invest gareyn waa inaad taqaanaa wax mustaqbalka kaaga imaan karo oo kale waa inaad taqaanaa waa inaad saadaalisaa tan waxaas sameeya maxaa imaan karo oo kale waa inaad taqaanaa haddii isaguna eegno trading and investing what's difference ku bixin maxay trading and investing haddii guud ahaan u dulman oo kale annagoo Englishkaas macna weyn siinayn trading waa maxay trading waxa weeyaan waa dadka suuqa uga qaraabtay sida maalinlaha oo kale ku dhufo ka dhaaqdo waxa la yiraahdo waxyaabaha la yiraahdo oo kale oo iyadoo suuqa wax badan ku jira mayaan oo kale investing waa maxay maalgashi waa maxay qofka maalgashadaha wuxuu wax maalgashan waxa weeyaan waa tusaale kale shay shirkadda wax ku darsatay oo kale maalgashatay oo kale 5 sano soo socota oo kale lacag baa ka fiirsay oo kale marka taas kala duwan midna waa longer time expectation oo tusaale kale investing oo kale waa longer time expectation oo wax mustaqbalka fog oo kale weeyaan 2 sano 3 sano 5 sano oo kale trading oo kale waa waxyaabaha ku dhufo ka dhaaqda la yiraahdo oo kale suuqa inaad soo gashid ka baxdid marka aad soo gashid marka both traders and investors si generate profit waxyaabahaas ay raadinayaan way suuqa soo galiyaan maxay to generate profit goalkooda ahmiyaddu weyn waa maxay waa to gain profit inay faa'iido helaan in the financial market institutionada suuqa oo kale inay ka helaan their methods and hababka to achieve this goal is however are quite different yani hababkaas ay ku helayaan lacagta ku kasbanayaan way kala duwan yihiin mid u eg ma jiro they have used a different strategy mid kasta waxay leedahay strategiyad u gaar marka generally investors generate a return of a longer period of time I think years or even decades waatana meesha ka hadlay investors waxay iyagu focus gareynayaan oo kale to generate return of a longer period of time yani waxay rajeynayaan oo kale inay shaygii ay maal gashteen waqti badan ka bacdi inay heli doonaan ama ay rajeynayaan waa years or even decades ama go'aansadan oo kale inay sanado badan ka bacdi ay heli doonaan way ka duwan yihiin marka ayagu halkaas ugu duwan yihiin iyagu maxay leeyihiin of a longer period of time if xitaa ha ahaado rabto years ha ahaato waxaas kula duwan marka traderskan waa maxay waa try to take advantage of the market volatility iyagu maxay isku dayaan iyagu waxa weyn isku dayaan maxay to take advantage of the market volatility suuqi waxay iyo volatility waa maxay volatility waxa weeyaan waa awoodda lacageed oo taala suuqa oo dhex maraysa inay qayb ka mid ah iyagu maalinta qaataan focuskooda ugu weyn waa maxay wayna maalintaas waxay sababta suuqa yimaadeen waa maxay maalintaas inay helaan faa'iidadooda helaan iyagu rajeynaya mustaqbal fog kama lahan suuqa kama lahan they enter and exceed position more frequently waatana suuqii iyagu they enter way soo gelayaan suuqii and exceed wayna ka baxayaan positionkii suuqa more frequently si joogto oo kale wayna soo gelaya wayna ka baxayaan waxdana kama laha my seek smaller returns iyagoo oo waxyaabaha ay raadinaya ka mid tahay smaller returns in wax yar uu soo noqdo with each trade ganacsi kasta uu soo noqdo they are often entering multiple trades micnaha since halka micniheed they are often entering multiple trades halkaasoo ay ku jiraan micniheed traders badan multiple traders ay ku jiraan suuqaas sababta ayaga kaliya suuqa oo qof kaliya ama individuals kuma jira malaayiin la midaba ku jira oo iyaguna istaraatiijiyadaas kale ku dhufo ka dhaaqda isticmaalaya taas soo trading and investing difference u dhexeeya kaas waa maxay fundamental analysis waa maxay marka fundamental analysis haddaan concept guud ka qaadano waa maxay waa markii la analyze gareynayo suuqa oo kale financial assets oo kale suuqa marka la analyze gareynayo waxyaabaha la isticmaalo ka mid ah methods la isticmaalo ama istiraatiijiyada la isticmaalo waa waxa la yiraahdaa fundamental analysis waa qayb ka mid ah marka fundamental analysis maxay
fundamental analysis waxa weeyaan in xoogga la saaray waxa la yiraahdo news, wararka in xoogga la saaro ama in wararka xoogga la saarine xoogga la saaro reports, warar horey looga qoran ganacsiga horey looga qoray reports la isticmaalo ama either new waxaa ka mid oo kale newsletters oo kale in la isticmaalo waxyaabihii wararka qoranayo kale. Ereyga fundamental wax kale ma ahan, waa in la isticmaalo, waa istiraatiijiyad la isticmaalayo news warar la isticmaalayo ama reports la isticmaalayo warar hore ganacsi looga qoray intii la analyse gareeyo wixii uga soo baxo kale in suuqaas kale lagu apply gareeyo ama either reports laga qoray ganacsiga laga qorayo kale in la isticmaalo kale. Fundamental analysis is a method of assessing financial assets valuation. Wax kale ma aha, waa inta hadda aan sheegnay waa hab lagu assess gareeyo oo lagu qiimeeyo financial assets valuation, inihii suuqyada dhaqaale oo kale in lagu qiimeeyo. Fundamental analysis studies both in economic, macnaha waxyaabaha laga eego waxaa ka mid ah markii la joogo fundamental analysis waxaa ka mid ah economics-ka fundamental factors waa dhaqaalihii iyo financial factors waxyaabaha oo kale dhaqaalihii saameynaya oo kale to determine if the value of asset is fair. Waxyaabaha la go'aaminaya waxaa ka mid ah haddii in dhaqaaluhu uu yahay meeshii la rabay inuu oo kale hantidii inay tahay meeshii la rabay oo kale inay tahay oo kale meesha ugu fiican ay joogto oo kale. Intaas fundamental baa ugu gudbina. Waa maxay technical analysis? Technical analysis waa maxay? Waa in iyadana la isticmaalo technical analysis wax kale maaha, waa in la isticmaalo waa in dib loogu noqdo waxyaabo mar hore dhacay in la isticmaalo si loo saadaaliyo waxyaabo mustaqbalka soo socda. Marka inay fahanto isku dayaa waxa weeye technical analysis. Marka technical analysis la isticmaalayo oo financial institutionska lagu apply gareynayo wax kale maahan. Technical analysis waxa weeyaan waa nidaam la isticmaalayo iyada oo wax laga fiirinayo dhacdo horey u dhacday si go'aan looga gaaro dhacdo dhici doonto waxyaabo soo socda. Waa in waxyaabo laga soo information laga soo qaato wax horey u dhacay tagta si timaadada go'aan looga gaaro. Marka technical analysis work with different approaches. Marka technical analysis waxa weeyaan wuxuu u shaqeeyaa different approaches u shaqeeyaa. The core idea behind the technical analysis waxyaabaha ka dambeeya oo technical analysis loo isticmaalo waxaa ka mid ah historical price action, yani in la akhriyo oo kale price action oo kale ma indicate how the market is likely to behave in the future. Waa inta Soomaaliya sheegno kale in waxa weeyaan la akhriyo oo kale historical price action oo kale qiimaha meeshu marayo oo kale iyadoo oo la cadeynayo in suuqu lagu jaangooyo ama lagu saleeyo kale la dhaho wax halkan laga arkayaa mustaqbalka dhici doona. Maanta waxaynu aragnay mustaqbalka dhici doona in dhahno kale. Taasna waa technical analysis. Waxaa jiro kale what drive the financial market maxaa dhaqaajinaya what drive risk waa maxay? The price of an asset, meaning qiimaha hantidu is simply determined by the balance of supply and demand. Waa tan meesha kale iyadana muhiimka ah. Waxa go'aaminaya waa maxay? Waa balancing gareynta ay balancing gareysanayaan supply and demand. Waxa go'aan ka gaarayay the price of asset qiimaha hantidu is simply determined by the waxa go'aaminaya waa maxay? Waa balance waa equal-ka isla ekaanshaha isla eg yihiin halkaan ku muujiyo demand-ga waa baahida and supply waxa loo baahan yahay wax suuqa la keenayay isla ekaanshaha isla eg yihiin waa dhaqaajinaya suuqa. oo markii dee la ogaado waxa qofkan u baahan yahay consumer-ka wuxuu u baahan yahay markii la ogaado by suppliers-kuna wax suuqa keeni karaan dee suuqa wax iskama keeni karaan. In other words, decided waxa go'aaminaya waa maxay? Waa the buyers waa buyers iyo suppliers waa isku mid. Halka demand and sellers isku mid tahay.
dadka wax iibsanayay. Where the supply meets demand there is a market. Halka ay ku kulmayaan halkaas halka ay ku kulmayaan supplierskii iyo demandigi. Ereyga supply wax kale ma ahan waa dadkii suuqa wax keenayay demandina waa dadkii markii suuqaas supplierska keenay ama firmiska ama shirkadahaas keenaan dadkii isticmaali lahaa weeyaan. What is the market trend? Waa maxay isbedelka suuq waa maxay? Market trend is overall direction where the price of an asset is going. Waa jihada guud waa isbedelka jihada guud qiimaha hantida uu isbedelayo u dhaqaaqayo. Either uu u dhaqaaqayo ama inuu up u dhaqaaqo ama uu down u dhaqaaqo. Waa going to the up ama going to the down. Kaasaan waxaan oranaa trend. In technical analysis markaynu fiirino market trends are typically identified using price action. Markaynu eegno technical analysis markaynu eegno market trends isbedelka suuqu are typically nooc ahaan identified waxa lagu aqoonsadaa using price action in la isticmaalo price action isbedelka price-ka oo kale ficilku sameynayo. Either trend line waxa la yiraahdo in la isticmaalo oo trend line waa maxay? Trend line wax kale ma ahan waa lines oo kale oo saan oo kale ah waa laba line oo kale saan oo kale ah in price-kii oo kale qiimihii saan oo kale ugu dhex wareego oo kale halkan labada tir dhexdooda oo kale in qiimihii saa ugu dhex wareego oo kale kaasa waxaynu oranaa trend line. Waxaa geesaha ka celinaya maxaa oranaa waa trend line. Or even key moving average moving MA baa la yiraahdaa moving average oo moving average la isticmaalo oo saan oo kale konton moving average baa jira la isticmaalo oo dadka forex-ka isticmaala foreign exchange-ga way garanayaan. Mid waxaa jira 100 oo kale waxaasna macna waxay ka tumayaan tusaale ahaan kan kontonka oo kale wuxuu ku leeyahay waa kontonkii maalin oo lasoo dhaafay oo kale line ah oo kanna 100kii maalin line ah lasoo dhaafay oo lineskaas tusaale ahaan oo kale waa line saan oo kale ah kanna line saan oo kale ah halka iska jiraan oo kale inaad isjarayaan oo kale inaad ishu ku hayso oo kale waxyaabahaas oo kale moving average. Marka generally there are two main types of market trend. Waxaa jira laba isbedel oo suuqa ah u dhaca. Waxaa la yiraahdaa mid bull baa la yiraahdaa midna bear baa la yiraahdaa. Bull waa up trend, bearna waa down trend. A bull market consists of a sustained uptrend waa kana wuxuu ka kooban yahay wax weyn waa uptrend weli halkaasoo price-ka uptrend oo bull-ka ah ama bear aan dhehe uptrend-ka ahay continually going up. Price-kiisa shaygaas wuxuu ka soconayaa going up. Halka a bear market suuqa hoos ahi consists oo kamid of a sustained downtrend. Downtrend way soo hoos u socdaa. Haddii hoos adana waa maxay? Where price are continually going down. Halkaas oo qiimihiisi shaygaas price-kiisa hoos socdo. Marka hadduu ilaahay ku roo yahay goormaa shay la buy gareeyaa goormaa shay la sell gareeyaa. Markaynu sanaan kale buy shayga waxaa la buy gareynayaa oo kale marka uu qiimihiisu shaygu hoos joogo. Sanaan qiimaha halkan joogaa sanaan kale waa 10 oo kale halkaana waa 20 price way halkan. Marka intaas waxaan oranaa halkan oo kale marka shayga halkan qiimihiisu uu hooseeyo oo halkan uu marayo waxaan la shaygaas waa buy gareynaa. Marka buy goorma buy erga buy la dhaxla isticmaalna buy waxaynu isticmaalnaa marka shaygu qiimihiisu uu hooseeyo oo aynu rajeynayno in qiimahaas uu kordho waxaynu isticmaalanaa buy waynu isticmaalnaa buy. Marka shayga qiimihiisu falaay noogu muujiyo waa qiimo kor u socda. Marka qiimuhu shaygu oo hoos u soo socdana maxaynu leenahay waa sell. Inaa marka fahantaan baa rabaa labadaas inaa kala fahantaan waxaa intaas dhan lagu cilmiyo
markina video waxa ra video qurux badan noqdo oo wax video wax kala muhiim ah noqdo mar marka sell waa maxay tusaale ahaan oo kale shay baa wuxuu marayaa oo kale 20 buu marayaa 20 dollar buu marayaa waxaa rajaynaysaa inuu 10 dollar imaan doono oo kale marka expectation-ka aad rajaynaysid inuu shaygan 20 dollar ka soo dhaqaaqo oo uu 10 dollar yimaado waxaan leenahay waa sell marka shay kasta waxa weeyaan sell waxaan leenahay waa marka qiimaha shaygu uu hoos u soo dhacayo kan maxay leenahay sell baynu leenahay aynu iska iibinaa